السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقة بسولو هذا برنامج channel كينا فضلا هدي أنا وعصب سبسكرايب نودي هدا هورن البركنا لايك شير كومنت وينو ديركلين إن ما أنتوا حنكهدل دونا إن شاء الله تعالى هدو إلى يرادو إن وحياة الدبيعية أو هويد أفضلين كروح اللي قفوش إن شاء الله تعالى وحول بطر الله أيا فضيه لكن ددال أيا إسكتشرو إي وحيابه محيه تدلا تستقري أما التجابي marka hore waxaad sameysaa Allah ku xirnaaw duceyso salliga nabiga akhriso mar walba maxay ahayd kalsoonidaadana waa inaad u dhiibataa Allah subhanahu wa ta'ala waxa ka soo haray waa iska kaalmaati insha Allah ta'ala wax walban Ilaahay wuxuu noo siiyay inaan ka faa'iideysano fast hotro waxaan ka hadli doonaa maanta waxa weeye waa cananaaska qof walba oo Soomaaliya ugu yaqaan cananaaska in badan aad ayaana loo isticmaalaa waxaana ka buuxa fitamiino fara badan sida vitamin C oo kaleeto aad ayuu u wanaagsan yahay marka cananaaska waxa ku jirto maadada la yiraahdo bromelain ayaa ku jirto maadadaasi waxay sababtaa inuu jilco afka hore ilma galeenka sidaan wada ogsoonahay fasti qofta markuu uur bilaabay leeyahay looma ogolo inuu isticmaalo cananaaska waxyaabaha loogu diidanayo waxaa kamid ah inuu afka ilma galeenka oo jilco oo saas ay ku dhacdo dhicis marka hooyada markay bilaheedu dhameysato xilligeeda foosha ay sugayso insha Allah ta'ala aad ayaa loogu taliyaa in isticmaasho mirahani cananaaska ah si uu jilco afka hore ee ilma galeenka taasina waxay fududeynaysaa insha Allah ta'ala inuu Ilaahay u fududeeyo fooshaasi marka maadadaasi ayaa ku jirta bromelain la yiraahdo aad ayayna u jilcisaa afka hore ee ilma galeenka marka hooyada markay bilaheedu aad sii dhamaato waxyaabo fara badan oo kaalmaata ayaa jira sidoo kale waxaa jirta timirta oo kale aad ay u wanaagsan tahay cananaaskan oo kale lama soo koobi karo faa'iidadiisa maadadaas ayaana ku jirta maadadaasna waxaa laga sameeyaa kaniiniyaal fara badan oo loo isticmaalo xilliga foosha hooyada haddii adkaato marka gabar kastoo uur leh insha Allah ta'ala waxaan kula talinayaa fast inuu Allah ku xirnaato salaadaha fara badan ee badiso sunnooyinka ah salliga nabiga akhrisato insha Allah ta'ala socodkana aad ayuu muhiim u yahay socodkana ha badiso insha Allah ta'ala bilaha 8 ilaa 9aadka sidoo kalena cananaaskan ay ku dadaasho inay cabitaan ka dhigato ama caadi ee qudaar ahaan u samaysto oo jarato ay sideeda ku cunto insha Allah ta'ala Ilaahay wuxuu ku yiri dadaal wax walba oo faa'iido laga helana waa inaan tijaabinaa oo dadaalnaa sida hadda la sheegay tijaabooyin fara badan ayaa soo maray insha Allah ta'ala fadlan aanu ka faa'iideysano insha Allah ta'ala soo dhawaada laagtana noo saara meel